madal si gaar ah loo soo agaasimay taasi oo qabanqaabadeeda uu qayb ka ahaa ururka mutadawiciinta ah ee nooleed oo ka qabsatay hotel Nasteexo ee magaalada Burco. goobtan oo kulmisay hal door iyo qaybaha dhalinyarada ee aqoon-yahanka ah ee gobolka Togdheer ayaa lagu falanqeynayay xeerka 12 ee tacriifada midaysan ee cashuuraha dawladaha hoose ee Somaliland. lafagurka iyo falanqeynta xeerkani oo ay garwadeen ka ahaayeen saddexda aqoon-yahan ee kala ah Professor Sheekh Ismaaciil Maxamuud Maxamed Araale, aqoon-yahan Cabdikariin Ibraahim Axmed iyo sidoo kale aqoon-yahan Khadar Maxamuud Maxamed ayay si qoto dheer u sharaxeen isla markaasina u falanqeeyeen xeerkani oo taabanaya baahida bulshada ee khuseeya dhinacyada adeegyada bulshada ee aasaasiga ah iyo kan kobaca bulsho ee xaq dhaqan dhaqaale. ugu horeyn waxa madashani ka hadlay xubno ku hadlayay afka dhalinyarada soo qaban qaabisay iyo sidoo kale aqoon-yahanka ka soo qayb galay. aqoon-yahanadani waxay inoo qaada dhigi doonaan oo ina fahamsiin doonaan xeerkan insha Allah taala. kulankani wuxuu hordhac u yahay kulamo dhowra oo lagaga hadli doono insha Allah taala qodobada dawladaha hoose iyo degmooyinka iyo gobolada waxaanaynu isku dayi doonaa inaynu fahanno. waxaynu u baahanahay dhalinyartu inayna daawanin uun qalin iyo buug lala soo baxo aqoon-yahanku qodobada ay ka hadlayaan ay wada nood garaysano su'aalo ka weydiino si hadhowto ay inoo anfacaan riboodkeena. khudbadihii falanqeyneed ee saddexda aqoon-yahan madashani ka jeediyeen ayaa iyana sidani ahayd iyada oo su'aalo ay ka weydiiyeen ka soo qaybgalayaashu xeerkani 12 ee tacriifada midaysan ee cashuuraha dawladaha hoose. kabka dawladda dhexe cashuurihii ay u qabatay dawladda hoose degmo walba waxa la soo mariyaa lagu daraa miisaaniyadda wasaaradda maaliyadda deetana biil baa looga soo gooyaa adeegyadii arrimaha bulshada ee horumarintii ayaa loogu talagalay inay dawladdu hoose caafimaadkii kaga shaqeyso oo ay la shaqeyso primary health care MCH-yada haddii awoodeedu gaadho cusbitaalada ay iyaduna ka shaqeyso cusbitaalada inay waxbarashadii primary education-kiina kaga shaqeyso elementary schoolska. waxaa muhiim u ah markaynu ka hadlayno cashuuraha dawladda hoose shuruucda la xidhiidha waxaa ka mid ah xeerka ismaamulka gobolada iyo degmooyinka oo ah xeerka ugu muhiimsan marka laga tago xeerka caawa aynu ka hadlayno. xeerka number 23 baa la yidhaahdaa. waxaan filayaa golaha baarlamaanka wiigan gudihiisa ayay fureen waa wax ka bedeleen. waa xeerka ka hadlaya nidaamka ismaamul ee ka jira gobol kasta. waxa uu awood u siinayaa qodobkiisa 86 dawladaha hoose in ay sameeyaan wax la yiraahdo tacriifad iyaga u gaar ah oo iyagoo qiimeyn sameynaya isla markaana ay u gudbiyaan wasaaradda arrimaha gudaha. wasaaradda arrimaha gudaha saay ku ansixiso taa ka soo horjeedkeeda xeerkan kan waa halkan aynu ku haynaa xeer la yiraahdo xeer number 12 waxaan u arkaa inuu yahay tacriifad ee aan u ahayn xeer. dawladnimada waxa jira public sector iyo private sector waxa hor dhismay private sector-ka inaga laga soo bilaabo 91kii private sector-ka hor dhismay isaga xoogeystay muruqyo yeeshay. public sector-kuna muran buu ku jiray oo dadku way ku murmayeen oo ku hareereysnaayeen. waqtigii imanka hadda sida uu sheegay ustaad Cabdikariim labada way kala duwan midna waa tacriifaadka wuxuu sharxayaa kan 23aad buu sharxayaa oo uu sii xadidaya wixii la qaadayay dakhliga meelaha uu ka soo galiyay iyo sida loo canshuurayo iyo waxyaabahaas ku hadlaya. dabeetana wuxuu sheegayaa tacriifkii inta maxaa waxa laga qaadaya waxa laga qaadaya lama update kareyn. iminka waata wax laga bedelay bari dhaweyd maalmo dhaweyd baan u maleynayaa tacriifaadka marka ay loo soo socdo way egtahay. marka hore ka 23aad baa wax laga qabtaa oo ka weyn ee tacriifaadku ay hoos tagayeen oo midi waa ka weeye iminka kulay la inoo sheegay oo xilliga la faafiyay oo ka 23ga ah ee weyn weeye. ka kalena waa ka kooban isagu tacriifaadka ka hadlaya oo kan hoos tagay kan buu hoos tagay. marka kan hadii la bedelay imanka maalintii dhaweyd oo wax laga qabtay oo amendments lagu sameeyay
macnaheedu waxa way kana waa loo soo socdaa unsama marka dee muranka jiraana kuma saabsana maxaa loo bedeli waayey iyaa bedelay kuma saabsana waxa laga yaabaa iska arrimo kale oo dadka xoqanaya inay yihiin waa fahmi kaysa xirsi bulsha TV burco